السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا wanaagsan asxaabtayda qaaliga ah meel walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaalkeen afraad muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa lidinkiis qodob aad u muhiim ah qodobkaas waxa weeyaan waa sirta guusha waxaa jira qodobo dhowr ah haddii aad diiradda saartana ku sahlaya wadada ama wadiiqada guusha qodobadaas aad ayay u fara badan yihiin balse waxaan ka soo qaadanay inta ugu muhiimsan qodobka ugu horeeya waxay tahay waa journal qodobka labaadna waxay tahay waa joogtayn kan saddexaadna waa sugitaan kan afraadna waa cabsi la'aan kan ugu dambeeyana waxaa tahay waa aarsi journal waa tixraac inaad mar walba aad ku samayso tariigyadaada dabagal ka hor iyo intaad guda jirto iyo markoo ilaadaba marka qodob aan u dul istaagno hadduu ilaahay idno waana soo koobaya insha allah qodobka horeeya journal waa ilinka hore ee ganacsigaaga waxaad ku qoraydaa marka wax walba ku saabsan tireedkaaga sida tireedka aad ku guuleysatay oo TB-ka ku dhacay sidoo kale tireedyada SL-ka ku dhaceen kuwa aad xiriirtay oo aadan SL iyo TB midna aadan sugin journalku waa shay aad ku xisaabanaydo qaladaadkii ka dhacay sidoo kale haddaan dhahno kormeeraha kaasoo kugu hagaya wax walba aad qabanaydo marka journal intaadan wax kale aadan qabanba waxaa lagaga baahan yahay asiga inaad mar walba aad diiradda saarto aad samaysato marka waxaa la rabaa inaad suuqan aad ula dhaqanto sida ganacsi oo kale mar walba ganacsi waxaan ogsoonahay inaad suuqii loo soo kalaho aad wax walba kala shaandhaynayso wax walba ay ku kala qoran yihiin journal marka aad ayay muhiim u tahay inaad leedahay qodobka labaad waxay tahay oo sirta guusha forex maanta haddaad ka dhabaysana aad 100% lahubo inaad ka guulgaaraydo waxay tahay joogtayn qodobkani waa laf dhabarka guulahaaga joogtayntuna waa aad ayay muhiim u tahay marnaba sharciyadaada ku degsan ha jibinin oo ha khilaafin isbarina mar walba joogtayso sharciyada ku degsan tusaale maanta sharciyada ku degsan aad trade ku qaadanaydo hadduu mid ka dhiman yahay marnaba ha qaadan sababtoo ah mar walba waxaa lagaga baahan yahay waxay tahay inaad ruulkaaga aad xooga saartid oo aadan maanta inaad ruulka qaadato biri aad 2 ka tagto biri aad 3 ka tagto lama baahno marka qodob erayada inaad dul istaago erayadan waa Soomaali adiga akhrisan kara haddaan dul maro qodobka saddexaad waxay tahay waa sugitaan qodob kale aad u muhiimsan weeyaan sugitaanka badankeena sidaan ogsoonahay trade markaan qaadanayno waan ku degdegnaa marnaba trade aan ku degdegin ilaa uu ka dhaho tradekan igal waxaan taaganahay waqtigeygii oo ruulkii oo idin ku wada buuxiyo markaas ayaa la baahan yahay trade inaad qaadato balse asigoo ka dhiman intrigaagii weli aan soo gaarin haddaad ku degdegto ogow inta asal aad ugu tala gashay in ka badan ayaad qaadanaysaa taasoo aansan xamili karin akoonkaaga marka trade hadduu ku dhaafo dhib ma lahan maalintaas haddii trade aad weydo waayo intaad trade xun qaadan lahayd waxaa ku wacan maalintaas oo idin inaad trade aadan qaadan trade xun trade la'aan ayaa dhaanta qodobka afraad waxay tahay waa cabsi la'aan inaad dhahaato ka takhalus cabsi oo idin marka cabsidu laba ayay kala tahay marka mid ah trade-ka ka hor midna waa trade-ka inta lagu guda jiro marka haddaan diiradda saarno oo qodob aan u kala qaadno midka trade-ka ka hor waxay tahay waxaad ka baqanaysaa inaad trade-ka gashid asigoo intriga jooga asigoo ku dhahaya waa waqtigeygii ee soo raac gaariga waxba kaama harsana ruulkii idin wada waafaqay trade-ka waad ku leedahay oo maxaad leedahay haddaad talo aad gasho trade-ka ama SL-kaaga dhaca oo aad ku khasartaa qodobka labaad waxay tahay oo cabsida ah inaad trade-ka adigu ku jira aad walwasho trade-ka ku wada saxan weeyaan ayaad waxaad ka cabsanaysaa inuu SL-kaaga dhaco oo hadduu khasaare yar kugu qabto ama aad aragto tiro yar oo casaana waxaad leedahay mar le moo intri ku yimaado waad ka bixi leedahay marka taa waa laga fiican yahay sidoo kale waxaa jiro
in haddii trade-ka aad aragto kas yaroo faa'iido ah aad istiraado xiro yoosan kugu soo laaban, taasna waa cabsida. marka waxaa lagaga baahan yahay inaad cabsida idil ka takhalusto, sababtoo ah trade-kan hadduu asal kaaga dhaco waad ku tala jirtay markaad soo qaadanaysay oo waad ogeyd intii asal hadduu maanta kaaga qaato akoonkaaga inta ka baxayda. marka inaad istiraado trade-ka maanta hadduu kaa saaro intaas ayaa kaa baxayda, ka baqdo, ka walwalsho oo laga fiican yahay trade-ka u daay asal ama TV, sababtoo ah trade-aan xisaabinba ma aan soo qaadan soo ma. marka waxaa lagaga baahan yahay inaad cabsidaas ka takhalusto. waa laba cabsi, midna waa intaad trade-ka qaadan ka hor, midna waa trade-ka intaad guda jirto. labaduna waxaa lagaga baahan yahay inaad ka takhalusto. qodobka shanaad waa qodob aad u muhiim asna wata muhiimadiisa, waa aarsi. badankeena waxaan ognahay trade haddaan ku khasaarno ama asal noo ka dhaco oo inaga saaro waana aad gudanaa oo aarsi ayaan sameynaa, waxaan isdhahnaa lacagta kaa baxday soo cesho. balse anagoo aan sharciyadeeni noo degsan aan ku qaadan ayaan trade kale degdeg u galnaa oo waxaan rabnaa lacagtii oo naga baxday inaan soo celinno. taasina waxay keenaysaa intii ku khasaarnay in ka badan in haddana laga qaato. marka adiga ayaa dhibkaas ku keenaysa. waxaa lagaga baahan yahay trade haddaad mar asal kaaga dhaco isdaji. asalku waa part of the trade, sababtoo haddoosan asal jirin suuqan qof walba ayaa soo gala lahaa sooma. ma jirto meel keliya profit laga helayo, wax kasta waxay leeyihiin loss. markaas maxaa lagaga baahan yahay inaad ka fikirto trade-kan mid ka kala xiga. hadduu London asal kaaga dhaco New York ayaa ka badan. haddii maalintaas oo dhan intri weydo iskaga tag oo waxaad samaysataa maalinta xigta imaaw suuqa. laakiin haddaad ku sii jirto istiraadid lacagta soo celi, ogsoonow waxaad ku dhacaydaa dabin ah in aad akoonkaagii dhan ka wada takhalusto. marka aarsigu dhib ahaantiina nagu badan yahay. marka waxaa lagaga baahan yahay haddaad rabto inaad certification forex aad ogaato ha aarsan marnaba, oo waxaa lagaga rabaa inaad leedahay rule. ogsoonow oo la soco inay jirto meeshani loss iyo profit. keliya haddaad kusoo talagashay ka waran aniga waxaan rabaa faa'iido, no. muhiimadeeda kale waxay tahay waa inaad leedahay wax yiraahdo trade maalinla ah. tusaale inta trade aad maalinta qaadanayso, haddaad tiraahdo aniga 3 trade 2 trade 1 trade ayaan ii go'aansan maalintii inaan qaato. haddii TB ugu dhacana gebi ahaan aad iska wada baxdo maalintaas oo targetkaaga aad gaarto. hadduu asal kaaga dhacana aad leedahay waxa ku xadidaya aad maalintaasi iska wada faaruqdo oo maalinta xigta aad timaado. balse haddii laakiin intriga dhaqaaqaba aad la dhaqaaqdo, taas waxay keenaysaa inaad adigana suuqa ku qalqasho oo waxba aadan ka keenin khasaare mooyaane. marka qodobadaas ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago, sababtoo ah aad ayuu muhiim u tahay in lala socdo. way fududahay in istiraatiiji la barto, balse waxaa la rabaa inaad adiga horta ku is-ogaatid, isbaratid maxaa kuu degsan noloshaada. kuwa hore basic maxay tahay, maxaa ku waafaqsan adiga aad hadaf leedahay. 5 qodob journal iyo joogteen iyo sugitaan iyo cabsi la'aan iyo aarsi. intaan qodob sida loo baahan yahay haddaad ugula dhaqanto, waxaan kuma ballan qaadayaa inaad noqonayso guulaha suuqani, sababtoo ah waxaad leedahay ruulku haga, waxaad leedahay shuruuc adigoo degsan. laakiin haddaad iska soconayso oo qalab iska tahay, waxaad ogaataa inaadan maalin uun ku sii jirin suuqaanna haddaad asal ka baqayso adeero iska day. haddaad los ka baqaydo iskaga tagba, qofkii loogu talagalay matii. suuqan wuxuu u baahan yahay adkaysi, wuxuu u baahan yahay dulqaad, safar, sugitaan, inaad mar walba aad ku celcelin leedahay. marka joogtayntuna aad ay muhiim u tahay. aad u mahadsantiin asxaabtayda qaaliga. assalaamu calaykum.